السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي ولا ودي سلامية وولكن قولي halkaan iga daawanaysaana waa youtube channelkayga Yaxya Live waxaan rabaa fiideo yar muhiim ah inaan soo hadda aan rabaa inaan kula wadaago kaasoo ku socda dhammaan dadka channel ku nool khaasna kuwa aan shaqaynin badanaa familiyada u badan waxaa jira hooyooyin badan oo wad yar haysta aan awoodin inay shaqeeyaan dad xanuuno jira la shaqaan jirno aan haysta dartood aan awoodi karin inay shaqeeyaan haddaba saad halkeedii ka muuqda runtii waxaa lagu doodayaa in lacagta la kordhin doono lacagta job centerka ama lacagta socialka ama lacagta license ay la qaato afwan sida loo socono hadda qofka single ka wuxuu qaataa lacag 400 oo euro adigu 400 kirada marka laga baxsho 400 wax saas oo soo dhaca marka in ay jirto ka doonto in ala qof laga dhigi doono 630 euro imika qofka ka maqan lacag 180 euro sala sheegay salaano kale qofkii hadii qofka dadka di family yihiin oo kale ay u soo dhici doonto license ka qura 630 waa isku imsa waa adu 1300 euro dadka di family yihiin qofka haduu single yahayna 630 ay gooni u soo dhaco hadaba barnaamijka waxa ku jira har sawirka san diakoniga waxa weeyaan dadku aan badan aqoonin waxa weeyaan urur diimeed ama group diimeeda oo badan laakiin farciyo badan kana leh qaybo waxay leeyihiin dadka caawiya meelo dadka u furan qaybo waxay leeyihiin dadka waaweyn haya adigu waa group badan oo wax noocyo badan oo qaybsama laakiin iyagu hadda ay ku doodayaan in ay u baahan yihiin dadku in lagu caawiyo oo loo kordhiyo lacagta sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay noloshii imika wax kasta qaali ay noqdeen wadankan imika jooga Germany hadda siraado shay uu lahaan jiray 10 senti oo kale imika xumar 50 senti wixii hal eero ahaa 2 eero u guurin marka qofkiina de noloshii ay aad u adag tahay oo qofku markuu Germany joogo ay qasab tahay inuu nolosha Germany ku noolaado sidaa darteed ayaa waxyaalaha ay ugu jirto dadaalka ay ka mid tahay diakonigu haddii ay diakonigu kusoo guulaysato arrintaasi ay noqon doonto lacagta license job center laga qaato inay noqon doonto lacag ala qof 630 euro waa jira imika meelaha qaar lacaga dadka u soo dhacaan laakiin job center ku raantii aad iyo aad buu u dhib badan yahay iska ilaaliya waxaa jira wax la yiraahdo lacag naqs haluna oo imika job center ku lacag badan ku cunsiyo markuu sanadku dhamaado lacag lagu soo dalaci doono marka sanadku haduu dhamaado adiga lacag lagu soo celin doono marka walaalayaal iska ilaaliya xisaabta job center markasta iska fiiri ama iska ilaali laakiin hadii ay arrinkan run noqdo runtii chance aad iyo aad muhiim ah ayay tahay maxaa yeelay hadii imika nolol dadku lacagta ay qaataan iyo nolosha Jarmalka runtii farqi weyn baa u dhaxeeya dadku wuxuu u baahan yahay caawimaad sida darteed ay diakonigu markaas si yaani noloshii la isku dheeli tiro oo yaani qofkii soo u noolaado looga fikiro waxa qasaba in yaani dabaqadihiina la siimo haduu qofka 400 qaadanayo runtii imika 400 waxa la isticmaalaa bis 10 cisho hadii ugu badato maxay tukaankii markasta tagto konton euro kaga soo baxaysa okay markaad laba jeer konton kaga soo baxdo waa 100 maanta laba isbuuc waa 100 laba isbuuc kan laba adoo 400 qofku wuxuu baahan yahay dhar buu baahan yahay telefoon la wasitaa internetka waqti wadankan waa lacag bisha hadii ugu yaraato 20 euro $30 bixisa qofku wuxuu baxshaa internetka guriga ku jira qofku wuxuu baxshaa korontadii waa la qaaliyay haysunkii guriga ama kulaaliyay guriga waa la qaaliyay biyihii guriga waa la qaaliyay kiradii waa la qaaliyay okay kirada dawladda ka bas laakiin waxyaalaha kale soomaali kale korontada waa jeebkaaga internetka waa jeebkaaga okay qofku uu nool yahay cunto rabaa dhar buu rabaa marka noloshii hadii la qaaliyay lacagta 400 la kuma filna de nolol maalmeedka sidaa darteed ay diakonigu yaani ugu doodayaan in si uu dhaqsiya badan nolosha dadka lacagta haafiya qaata ama lacagta license job center ka qaata in la bedelo runtii taasina xogaha dadka shaqeyn waxay u noqonaysaa war aad u farxad badan laakiin aan waxaan kula talinayaa walaal insha Allah qofka haduu adigu hawl hadii ka xidhay oo kale hadii hawlo muhiim ah jiraan oo aan u shaqo tagin karno kale hadii uu dana gaari oo kale in xogaha isku dhigto hataa haduu isku dhigto hataa lacagta job center ka ay ku filan mini job hataa iska garaaco oo maxaa yeelay waxay noqonaysaa in ay yaani noloshaad ka faala qaado hada 400 oo kale runtii saan ku sheegay Jarmalka joogtaa waad ka warqabtaa noloshii wax ku taraysan laakiin hadii aad mini job ku darto waxay noqonaysaa adigu
500 haddaad qaadato kale kirada guriga lagaa bixiyo kale aad baa fiican tahay qofka hadduu awoodo. Laakiin hadduu qofku yahay qof ubad yar ku xiran dee licensekaas ka qaato waa caadi weeyaan. Laakiin qofka awooda waxaan kula talin lahaa inuu saas sameeyo oo mini job yar ama tire set iskaga tuurto si uu noloshiisa u horumariyo. Maxaa yeelay qofkii wadankiiba ku xiran family wadankiiba ku xiran biil buu diraa si loo wada qofno qof wadanka jooga dadka biil bay wada diraan inagoo dhan biil bay dirnaa waa sax. Okay, marka waxa weeyaan qofka markuu biil diro dee halkanna uu baahan yahay inuu noolaado marka wixii ismeera Keenyan ma ogtahay. Marka Soomaaliya xoogaha aynu bal indhaha yara kala furno wadanka joogno systemka la qabsano qofka hadii ay license ku yar yahay laakiin mid job iska yar tuurto ama tire set. aad baa idin salaamay walaalayaal. waa walaalkiin guuleed haddaad fadlan ku cusub tahay YouTube kan fadlan subscribe isaar. aad baan ku salaamay wixii comment